Assalaamu calaykum dhammaantiin daawadayaal kusoo dhawaada muuqaal kooban oo aynu kaga hadli doono calaamado muhiim u ah qofka gaadhiga wada iyo qofka baranayaba. Haddii aad imtixaan ku jirto iyo haddii aad hore gaadhi u lahaydba, calaamado ku anfacaya ayaynu kusoo mari doonaa dariiqyo dhowr ah oo inta aynu kala kulanno calaamado ayaynu soo bandhigi doonaa. Kusoo dhawaada dhammaantiin barnaamijka. Calaamadda halkan ku taala waa calaamad park verbot ah ama waa meel aan parking loogu talagelin halka ay ka bilaabmaysay. Fallaadha yare hoose caddaanka ayaa inoo tilmaamaysa inay tahay meeshii ay ka bilaabmaysay. Marka laynkan aynu mari doono ee aynu socodka ku marayno waxa aan la ogolayn ama mamnuuca inaad gaadhiga ku baarkinto. Dhinaca kale waa la ogol yahay laakiin qaybtan waxa calaamadda loogu dhajiyay sababteedu waa taas. Ka bilow meeshaasaan kasoo dhaqaaqnay hadda ilaa halka ay waddadu ku eg tahay ama ay ku dhammaan doonto. Intan aad socoto ama meeshan aynu soconno waxaa loo ogol yahay keliya 3 minute ka badan inaanad istaagin. Maaha meel baarkin ah laakiin waad istaagi kartaa ugu badnaan 3 minute sida bus stop-ka ama qof aad dejinayso ama qof aad ka qaadayso. Degdeg macnaha baarkin fudud ayaa loo ogol yahay oo aanu wadaha gaadhigu aanu gaadhiga ka degayn oo aanu ka tegayn. Birtan dhexe ee halkan inooga muuqata maaha meeshii ay ku dhammaanaysay laakiin waa bartamihii qiyaas inch isku jirta xagga ay ka bilaabantay iyo xagga ay ku dhammaanayso. Waana xasuusin lagugu xasuusinayo in dariiqani aad socotaa aanu ahayn meel aad ku baarkiman karto. Calaamadeeduna sidii aynu hore usoo aragnay waa sida tan. 2 fallaarood oo caddaan ah ayaa midna xaggan bidixda u jeeda midna midigta. Waa xasuusin lagugu xasuusinayo inaad ku jirto meel aan lagu ogolayn inaad ku baarkinto. Dhinaca ay kaga dhegan tahay ayaa khuseeya. Xagga kale ay baabuurtu ka taagan tahay muhiim maaha. Haddii aan lagu dhajin waad ku baarkiman kartaa laakiin qaybta ay ku taalo saas ayay sheegaysaa. Badanaana sidii aynu casharadii hore kusoo aragnay waa dariiqyada dhaadheer ee aan qofku meesha uu kasoo galay aanu xasuusan karin ayaa lagu xasuusinayaa si aanu isku ilaawin oo aanu u moodin inay meeshani tahay meel lagu baarkiman karo. Haddii aynu hore ugu sii soconno dariiqii waxaan halkaa inooga muuqda dariiq kale meesha gaadhigaasi uu yaallo ee xagga hore ah. Waxay kuu caddaynaysaa inuu dariiqani dhammaaday oo uu ku dhex milmay ama uu ku dhex furmay dariiq kale. Markaas halkaa wixii dhinaca ka xiga ayuu noqonayaa dariiqii aynu soo soconnay ee xagga dambe aynu kasoo baxnay. Wixii xaggaa hore ka xigaana waa dariiq cusub oo bilaabmay. Marka halkan ayaynu usoo soconnay si aynu u ogaano meesha ay ku dhammaatay calaamadda aynu ku garan karno. Calaamadda yar ee fallaarta ee korka kaga qoran ayaad ku garan kartaa inay dhammaatay waddadii oo aad waddo kala gashay. Waddadaa kale calaamadaheega ayaa ku khuseeya laakiin imika jidkan aynu ku jirnay keliya waxaa lagu ogolaa in hal dhinac lagu baarkimo. Fiiro gaar ah dariiqani ma ahayn dariiq Einbahnstraße ah ama dariiq hal dhinac oo keliya laga soo geli karo muu ahayn. Waa dariiq labada dhinacba laga geli karo ama baabuurku uu ka iman karo. Sababta aan saa u leeyahayna waxay noqonaysaa Einbahnstraße ama dariiqa halka dhinac uun baabuurka kasoo galo waxaa lagu ogol yahay keliya inaad hal dhinac ku baarkinto. Saas darteed ayaan kuugu sheegay si aanad ugu qaldin inay meeshani tahay meel Einbahnstraße ah oo hal dhinac laga soo gelayo. Calaamadda halkaas inooga muuqataana waa calaamad tilmaamaysa Baustelle ama meel dhismo uu ka socdo. Waxay caddaynaysaa inaad halkaa hore ku arki karto meel la dhisayo ama shaqaale dhismuhu ka shaqaynayaan ama gaadhi qolada dhismuhu ay wataan uu taagan yahay. Kolley waa digniin kaaga digaysa in meeshaas dhismo uu ka socdo. Ninkaas majarafada haysta ayaad ku garan kartaa. Waana calaamad muujinaysa inta badan taxaddar gaar ah inaad samayso dadka dariiqa iskaga gudbaya. Hadda waxaynu arki doonaa qaabka aad ku garan karto inaad gashay Dreißig Zone
ama meelaha loogu talagalay in speedka aada loo yareeyo ama xaafadaha dhexdooda ah ee lagu socdo 30 km/h 30 km/saacadiiba lagu socdo. yacnii meelaha xaafadaha dhexdooda ah ee aan loogu talagelin speedka xoogga ah in lagu socdo, waxyaabaha aad ku garan karto markaad gelayso iyo markaad ka baxaysaba. waxay tani muhiim kuugu tahay si aad ku ogaato qofka xaqa u leh dariiqa, sida rest for links oo kale. meelahan oo kale aad ayay looga isticmaalaa, waana meelaha aad ku garan karto inaanay calaamado badan lahayn. waxaad ku garan kartaa 30kaas dhulka ku qoran drysish waa 30 km/h bay u dhigan tahay. korkana waxaad ka arkaysay sida aanu arkanay drysig zone, waa meelaha loogu talagalay speedkaagu inaanu 30 ka badnaan, si aanad dhibaato u gaadhsiin dadka, ciyaalka iyo dadka xaafadaha degan ee meelahaas dariiqa jooga ama ciyaalka dariiqyada ku ciyaaraya. saas darteed ayaa halkan lagugu sheegayaa in aad gashay meel xaafada ah. waxyaabaha aad ku garan karto inaad ku jirto drysig zone waxaa ka mid ah 30kaas dhulka ku qoran iyo tii aynu halkaa kasoo aragnay. marka aad ka baxaysana waxaa lagaaga baahan yahay inaad taxadir gaara samayso, waayo waddadaas weyn ee Hauptstrasse ah marka aad gelayso waxaa lagaa rabaa calaamadaas iska jir Vorfahrtgefähren, waa inaad iska jirto dariiqa aad gelayso. saasay kaaga digaysaa taasina. xagga horena waxay nooga muuqda bilow meeshii aan lagu ogolayn inaad ku baarkinto gaadhiga oo kuu bilaabantay, halkay ku dhammaan doontana horeynu soo aragnay tusaale hore oo lamid ah. marka halkan hore ugu sii socon mayno, waxaynu kaloon eegi doonaa sida aad ku garan karto inaad ka baxday drysig zone ama meeshii loogu talagalay inaad ku socoto speedka 30 ama xawaaraha 30. waxaad ku garan kartaa calaamadaas halkaa ku qoran 30kii oo xariijimo yar oo madmadow oo saas u dhaadheer la mariyey. drysig zone waa madow khafiif ah iyo meel cad. sidaad arkaysana waxaad halkaa gaadhigaa ka arkaysaa inuu tartiib u socdo, iskana jirayo xagga midigta iyo bidixda gaadhiga ka imanaya. calaamadaasaana kuu caddaynaysa waddada Hauptstrasse marka uu gelayo waxaa laga rabaa inuu taxadir dheeraad ah sameeyo gaadhiga halkaa ka baxaya ee gelaya waddadaas weyn. saas ayaad ku garan kartaa. dhabarkeyga dambena waxaa ku qoran sidaad arkaysaan drysig zone waa isla markaad gelaysay calaamadii aad arkaysay unbaa dhinaca dambena lagaaga qoray xaggii bixitaanka ah inay kaa dhammaatay. waxay noogu eg muuqaalkeenii koobnaa aynu kaga hadlaynay qaybo ka mid ah calaamadaha dariiqyada iyaga oo si toosa ugu yaala dariiqyada. intaynu ku kulmi doonno muuqaalkan oo kale ah, dhammaantiin waxaan leeyahay nabadgelyo.